mudane madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu kugu soo dhaweynaya sanad guurada 25aad ee aasaaska ciidanka qaranka ku soo dhawow mudane madaxweyne 2 February maanta oo kale waxaa sanad kasta loo dabaaldegaa aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo haatan laga joogo 25 sanadood xafladani oo lagu maamuusay sanad guuradaasi ayaa ka qabsoontay xarunta taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenno qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan golayaasha guurtida iyo wakiilada taliyayaasha ciidamada qaranka iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dalka dabaaldega ciidanka qaranka iyo waliba farxadda laga dheehanaya indhahooda ayaa jawaab adag u noqonaysa cadawga Soomaaliland meel kastoo ay joogaan isla markaana dhiirigelin u noqonaysa shacabka iyo himilada qaranka Soomaaliland maanta oo kale waa maalin baaldahaba kaga qoran taariikh lama ilaawaanka ee qarankani Soomaaliland ciidanka qarankuna ay yihiin dhidibada uu qarankani ku taagan yahay dowladtuska ciidanka kadib waxaa munaasabadaasi hadalka furay taliyaha ciidanka qaranka Nuux Ismaaciil Taani wuxuuna ku dheeraaday ahmiyadda ciidanka waliba inay ka go'an tahay inay difaacaan qarankani jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranku wuxuu heegan ugu jiray difaaca iyo ilaalinta qaranka lama taabtaanka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland intii ka dambeysay mudane madaxweyne ciidanku wuxuu ku dhaqaaqay sidii maamulka dawliga ah loo fidin lahaa ee loo gaarsiin lahaa gobolada waxa kale oo ciidanku ku dadaalay sidii uu sugi lahaa nabadgelyada xadka waxaan ku dhaqaaqnay sidii loo tayeyn lahaa tababar loo gelin lahaa ciidanka waxaan abuuray dugsiyo tababar ciidanka qaranku wuxuu leeyahay 6 dugsi waxa kale oo tababar dibadda noogu maqan saraakiil staff college qaarna way ku maqan yihiin qaarna way soo dhameysteen waa sanadkan waxaan noogu qanay injineero kuwa master iyo kuwa first degree intaba way noo maqan yihiin waxaa noo maqan oo dibadda noogu maqan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaan master iyo first degree iyo kalkaaliyaal saraba waxaa noogu maqan banaanka leeli saraakiil oo infantry iyo intelligence bale waxaa kaloo banaanka noogu maqan farsamo yaqaano kala duwan oo auto mechanics artillery iyo tank mechanics iyaguna banaanka noogu maqan yihiin mudane madaxweyne waxaan ku guuleysanay inaan xerooyinka ciidanka u helo solar oo haddaba soo aragtay qaarkood oo dabka wada siin doonta inta Hargeysa inta kalena waxa wax ku dadaal doonaa inaan maxay ahaydeen u sameeyno intaasi kadib waxaa hadalka qaatay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadaladiisii kamid ahaa ciidanka qaranka 2018 ujuuno farabadan bay soo mareen junadaas oo ah dagaaladii halka laga dhawaajiyay laga soo wajahay maamulkan Puntland ee dariska nahay ee dawladda Soomaaliya caam ahaan waxaa xaqiiqatan inta uu sheegay guulo mugle oo inaga iyo qaranku baan ku taabsanay inay ka soo hooyeen waxaa xaqiiqatan mar laba duulaan ahayn mar laba cid ku macnaha aan hujum ku ahayn haddana iyagoo goobahoodii fadhiya indiraaf 5 jeer bala soo weeraray intaba madaxweyne waxa ogeyd guulihii iyo iska caabintii ay ka soo hooyeen mar labaad iyo mar saddexaad uga hambalyeynaya guulaha mugale ka soo hooyeen mudane madaxweyne waxaa yana xaqiiqo jirta ciidanka qaranku inuu waqti badan runtii ka geysto ama tan badan uu ku lumiyo ka dhex shaqeynta ama xalinta dhibaatooyinka inaga soo noqnoqdo dagaala beeleedyada ka dhasha beelaha Soomaaliland ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan baryo u dirayaa ciidanka qaranka tanaanada saraakiisha saraakiil xigeenka dablayda iyo xaasaskoodaba sanad guurada 25aad ee ciidanka qaranka ilaahayna waxaan u rajaynayaa horumar guud ahaan iyaga iyo xaasaskoodaba
iyo in ilaahay sanadkan sanadkiisa u gaarsiiyo barwaaqo iyo horumar dhexda qaranku wuxuu uga mahadnaqayaa ciidanka difaaca ay ku jiraan qaranka iyo inay yihiin dhidibada koowaad ee ilaalinta qaranka markaa ciidamada kala duwan waa inaynu siinaa mudnaanta koowaad dhinac walay tahay hadday tahay ammaan mahadnaq sharaf xurmayn iyo dhaqaalaba xukuumaddana maanta joogtana taasaa u ah mudnaanta koowaad marka waxaan leeyahay ciidamada qaranka aada iyo aad baan ugu hadnaqaynaa xilkoodii koowaad way guteen ummaddana waxay ku leeyihin sharaf qadarin haddayna wax kale haynin iyaga iyo ubadkooda iyo xaaskoodaba mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waxa uu iftiimiyey hayaanka mustaqbalka ee ciidamada somalilan waxaan ilaahay idinkii kala sheegayaa inaynu gaadhno oo aan goobjoog ka noqdo isagoo la ciidanka cirka oy diyaarado dhalaya xagka dabadeed goobta waa riyadayda ilaahay idinkiina waynu gaari doonaa isagoo la ciidankii badda oo baddeena dharaaran maraakiib daafacda oo maraakiib waaweyn oo ciidanka hogaaminaya ay gaaraan ilaahay idinkii waxaynu kala jeegaynaa waanu ahowgelaynaa inuu ciidankeenu yeesho gantaalaha ridada dheer ee cadow ka baqdo qayrkeed uu samaysto wasaasaka markaasuu dalkeenu sugayahay cabdikariin karaama hormood cable t v hargeysa